waana wanaagsan waa isla isagii iyo hargeysa online caawa waxaan idiin soo gudbinayaa barnaamij aad u xiiso badan oo ah sababta ama habka aad u ogaan karto inuu hackar soo galo computerkaaga iyo siyaabaha easiga ah aad u ogaan karto waayo waxaa laga yaabaa antiviruska aad isticmaalayso inaan awood u lahayn inuu kaa difaaco oo virusku uu arko laakiin hackarka attackiisa inuusan arag marka boqolkiiba 65 ama 60 unbaa laga yaabaa inuu kaa difaaco laakiin waxaan ku tusayaa si aad u easy ah aad u ogaan karto computerkaaga markaste adoon ogeyn in laga dhex adeegto iyo in kale marka waxaad kicinaysaa dos promptiga waxaad qoraysaa net start kadib waxaad arkaysaa IP-yada computerkaaga soo gala 127.0.0.1 ka waa iska local DNS-kii isaga waa adiga dhexdaada ka wax muhiim maaha laakiin haddaad aragto IP-yada noocaas oo kala ah oo halkaan ku qorayo establishedka waa hacker computerkaaga soo gala portiga ku soo galo routerkana waa arkaysaa 443 local IP-gaygana waa ka wad arkaysaa computerka haddaan wax ku duubayo iyo portiska uu ku soo galo isagu waa marka laba jeer buu soo galay wad arkaysaa established mid kale jira isagana haddaad aragto mid kale soo wada hawshiina waata wuxuu ku leeyahay time wait buu ku leeyahay time wait marka waxa weeye kan kale haddana soo galaya isla haddana portiga ayuu ka soo galaya 443 marka basti weyga waxa weeye aad iskaga xidhi karto routerkaaga intaad kala furto inaad portiga aad ka xidho 443 markasta hackerada ay kasoo galaan sidaas unbaad aad ku ogaan kartaa wixii computerkaaga soo galay iyo portiskaas aad ka xidhi karto routerkaaga sida loogu xidho routerkana maalin kale ayaan cashirtaan idinku siin doonaa waynoo mar kale iyo barnaamijka kan ku xiga oo aan idin bari doono sida wax loo ataago ama website loo ataago. Assalaamu calaykum.